Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan u wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Naafic Show 24ka bisha Febraayo 2026. Qodobada qaybtan aan idinku hayno waxaa kamid ah macluumaad ku saabsan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo baarlamaankiisa ka hor hadlayay ayaa Iran hajabaadii ugu weyneed u diray madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi oo booqasho aan hore loo sii qorsheynin ku tagay wadanka Sacuudi Carabiya. madaxweyne Trump oo la taliyaashiisa la wadaagay waxa uu Iran ka damacsan yahay Mareykanka oo bilaabay inuu ka soo saaro shaqaalihiisa iyo diblomaasiyiintiisa magaalada Beirut ee wadanka Lubnaan. waxaan sidoo kale eegi doonaa macluumaad ku saabsan afgambiga fashilmay ee dalka Iran yaa ka dambeeyay sidee wax loo abaabulay. qodobo kale ayaa raaci doona. soo dhawaada mar kale. marka hore aynu ku bilownay diyaarad nooca qumaatiga u kacdo oo tababar ku jirtay oo ay leeyihiin ciidanka cirka Iran ayaa maanta ku burburtay magaalada Dorjah ee gobolka Isfahan iyadoo ku dul dhacday suuqa lagu iibiyo khudaarta waxaana ku geeriyooday 4 qof oo ay ku jiraan duuliye ku-xigeenkii iyo 2 qof oo rayid ah oo ku sugnaa suuqa ay ku dul dhacday sida ay baahisay warbaahinta Iran. dhinaca kale Masar ayaa diyaar u ah inay la shaqeyso dalalka Afrika si Itoobiya looga helo marin ay ku gaarto badda cas haddii ay Itoobiya muujiso dabacsanaan ku aadan muranka biyaha Niilka. sidaas waxaa qoray wargeyska The National oo xaruntiisu tahay Abu Dhabi isaga oo xiganayo ilo ku dhow wadahadallo gaar ah oo ka socda Qaahira. warbixintu waxa ay sheegtay in soo jeedinta loo gudbiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed toddobaadkii hore sidoo kalena lala wadaagay Mareykanka halka oo Trump uu si cad u muujiyay danaynta ku saabsan dhexdhexaadinta muranka 10 sano jiray ee ku saabsan saamiga biyaha Niilka. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shalay baarlamaankiisa Israa'iil u sheegay qofna ma oga waxa biri dhici doona balse annagu waxa aan diyaar u nahay dhammaan suurtagalnimada waxaase si cad ugu degaynaa nidaamka Tehran inaysan soo weerarin Israa'iil taa oo haddii ay dhacdo noqonayso qaladaadkii ugu waaweynaa taariikhda sababtoo ah weerar kasta oo dhinaca Tehran ka yimaado waxa aan ka bixi doonaa jawaab aan qiyaas lahayn. madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa shalay soo gaaray Sacuudiga iyadoo garoonka diyaaradaha ee Jeddah uu ku soo dhaweeyay dhaxal sugaha boqortooyada Mohammed bin Salman oo la sheegay inay wada hadallo yeelanayaan. booqashadan degdega ah lagama bixin faahfaahin la xiriirta waxa ay salka ku hayso balse waxa ay ku soo aaday 2 maalin kadib markii Sacuudiga iyo Masar war-saxaafadeed wadajir ugu soo baxay ay ku diideen hadalka soo yeeray safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil oo ku baaqay inay Israa'iil la wareegto guud ahaan bariga dhexe. wargeyska New York Times ayaa ku waramay in Trump uu u sheegay la taliyaashiisa in uu janjeero 2 doorasho oo ku wajahan xaaladda Iran. doorashada koowaad in la qaado weerar military oo degdeg ah maalmaha soo socdo si Iran looga cadaadiyo inay ka tanaasusho hubkeeda nuclear-ka. doorashada labaad haddii weerarka koowaad uusan Iran ku qasbin inay bedesho mowqifkeeda waxaa la furin karaa weerar labaad oo ka ballaaran kan hore oo lagu beegsanayo hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. madaxweynihii hore Iran Xasan Rouhani iyo wasiirkiisii hore arrimaha dibadda Mohammad Javad Zarif ayaa isku dayay inay afgambiyaan hogaamiyaha sare Iran Ayatollah Ali Khamenei intii lagu guda jiray dibadbaxyo dhawaan ka dhacay Iran iyadoo la sheegay Rouhani oo taageero ka helayo wadaado ka soo jeeda magaalada Qom iyo shakhsiyaad la sheegay inay xiriir la leeyihiin ilaalada kacaanka Iran in 7 bishii 8 ee Janaayo ay diyaariyeen qorshe xukunka loogu wareejinayo Ayatollah Ali Khamenei balse qorshahan waxa uu fashilmay markii uu dhaqdhaqaaqan ogaaday Ali Larijani oo ah madaxa golaha amniga Iran oo leh awoodda ku soo xigta Ayatollah Ali Khamenei sida uu baahiyay wargeyska Liga Figaro ee ka soo baxa Faransiiska. Rouhani iyo Zarif ayaa hadda la sheegay inay ku jiraan xabsi guri halka kaaliyaashooda xabsiga la dhigay walow aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca Iran oo warbixinta loogu falceliyay.